walaalka muslimka ah waxaan kusoo gudbinayaa kelmado iyo oraahyo cajiib ah kuuna dhiirigelinaya khayrka, balse marka hore aynu ku sallino nabigeena maxamed. allahuma salli calaa nabiyina maxamed wacala aali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahiim wacala aali ibraahiim. waxaa laga wariyey saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdullaahi binu mascuud allaha ka raali noqday inuu yidhi mar uu saaxiibtinimada ka hadlayay, weligaa ha la saaxiibin ilaa qofkii dikriga ilaahay iyo khayrka kugu caawinaya mooyeene. waxaa inala gudboon marka inaynu ka fiirsanno qofka aan saaxiibka ka dhiganayno. haddii aad rabto inaad ogaato qofka diintiisa, ha fiirinin salaadiisa iyo soonkiisa, balse waxaad fiirisaa sheekadiisa. marka uu sheekaynayo run iyo been waxay tahay, iyo ammaanadiisa markii wax loo dhiibto, iyo xalaal miirasho inuu yahay qofkaas iyo in kaleeta. waxyaabaha ugu weyn ee qalbiga toosiya ee hagaajiya waxaa ugu muhiimsan qur-aanka akhrintiisa oo la badiyo, waayo qur-aanku wuxuu dabciyaa qalbiga, wuxuuna u siyaadiyaa deganaansho. laakiin waa qofka qur-aanka akhriya kuna akhriya tadabbur, isagoo u fiirsanaya macnihiisana qur-aanka dhuuxaya. xaaraanta lagama dhargo si waliba ay u badan tahay, balse xalaashu waa ay ku filaataa dadka haba yaraatee. awaya addoommadii ilaahay jeclaa jannadiisana rajaynayay, ku xamdi ilaahay oo dheh alxamdulilaah alxamdulilaah alxamdulilah. waa kuma faqiirku? faqiirku ma ahaan midka aan dahabka iyo xoolaha haysanin, balse faqiirku waa midka edabta iyo akhlaaqda ka madhan, een edab iyo akhlaaqtoona lahayn. allahu akbar. walaal, haddii aadan ku faanin diintaada iyo inaad tahay qof muslim ah, maxaa kaleete ood ku faani doontaa? ma og tahay in muslimnimadu ay tahay hadiyadda ugu qaalisan ee ilaahay dunida ku bixiyo? mase la socotaa inuu ilaahay kuu dooqay kuuna gartay adiga oon ka baryin, kana dalban, kana codsan muslimnimo? marka ilaahay walaal ku xamdi, kuna faan inaad tahay qof muslim ah. allahu akbar. waxa uu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala, waxaa la arkaa inaad dhibsataan shaygaasna uu ilaahay gudihiisa yeelay khayr fara badan. haddaba walaal, haddii uu muuqaalkani ku soo gaadhay, ha iloobin in walaalahaada kaleete ee khayrka jecel la sii wadaagto ood u sii gudbiso. haddii aad janelka ku cusub tahayna sabskrayb saar. elayska islaamka waa janel aad ka heli karto maxaadarooyin iyo waano iyo waxyaabo fara badan oo diini ah insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.